Gudaha keyn weyn oo qadiimiya waxaa ku dhex yaalay god habaaran kaasoo loo yaqaanay magaca ah jirida dhiig leh. Godkaas waxaa ku dhex yaalay geedo. Geedahaas waxay soo dayn jireen dheecaan guduudan kaasoo u eg dhiigga bil'aadanka oo kale. Qarniyo ka hor, dadka ku nool degmadaasi waxay la galeen shayaadiinta ku nool godkaasi heshiis madow. Wuxuu heshiiskaas ahaa inay siiyaan shayaadiinta ku nool godkaasi dhiig bil'aadan oo ay ku beddeshaan markaasi barwaaqo aan dhammaad lahayn. Laakiin dhiiggii wuu qalalay, habaar ayaana ku dhacay degmadii. Kayntii waxay isku beddeshay mid nool, markaasna lagu ugaarsado dadka. Sannado badan kadib, 3 walaalo ayaa yimid degmadan si ay markaasi u dhaxlaan hantidii uu ka dhintay aabbahood. Aabbahood wuxuu ahaa mid taajira, alaabtiisoo dhanna waxay ka taali degmadan. Waxay ka yimaadeen magaalada si ay degmadani uga qaataan hantidii uu aabbahood ka tegay. Waxay bilaabeen inay aabbahood alaabtiisa baaraan, kadibna waxay ka dhex heleen xasuus kor. Ayagoo waxba ka fakarin ayay iska akhriyeen. Waxaana markaasi ku taalay in aabbahood iyo familkiisaba ay ahaayeen kuwii bilaabay heshiiskan lala galay shayaadiinta godka ku jira. Asaga maadaama uu ahaa qof familka ka tirsanna, wuxuu markaasi ilaalinayay heshiiskaas. Wuxuu markaasi u kaxaynayay dadka dalxiisayaasha ah dhinaca kaynta, kadibna wuxuu ku tuurayay godka. Xaggaas ayaana iyagana lagu jarjarayay. Waxaa ku qorneyd, kayntu waxbay dalbanaysaa, jiridaheeduna way soo weynaanayaan ayagoo daalan. Aniga waxaan ku qasbanahay inaan wax siiyo. Kuwii walaalaha ahaa waxaan saa'id uguma sii fakarin. Waxay isdhaaween waa la rabay, sidaas darteed ayuu waxaan u qorayay. Waxay damceen inay buuggii gees iska dhigaan, laakiin waxaa ka soo dhacday maab. Maabkaas waxaa ku sawirnaa dhinac dhiiga oo ay ku taalo calaamadda X. Zayd, Isra iyo Cumar waxay isdhaheen waxani waa hanti uu aabbihiin meel ku aasay, sidaas darteed la soo baxa markii ay dadka kala seexdaan. Markii ay dadka degmada seexdeen ayay xilligii maqribka ahayd. Waxay aadeen dhinacii kaynta. Markii ay kaynta galeen, waxay ahayd mid aad u degan. Wax sharkanoo ka yeersa ma jirto, xayawaan iyo dabaylba. Markaasi geedaha waxay ahaayeen kuwo aad u waaweyn, dheecaan guduudan ayaana ka imanayay. Isra ayaa mid ka mid a geedihii taabatay gacanta, isla markiina way ka soo ceshatay. Waxay u malaysay waxaan inuu dhiig yahay. Waxay go'aansadeen inay sii socdaan oo maabka aabbahood kaga tegay ay raacaan. Waxaabaad moodaa inay kayntu nooshahay. Waddadii ayaa isku laalaabanaysa, ayagii isku soo noqnoqonayaan. Markaasna waxaabaad moodaa waxyaabo madmadow inay geedaha dhexdooda ka dhaqdhaqaaqayaan. Ugu dambayn, Cumar ayaa wuxuu bilaabay inuu qayliyo, asagoo dhahaya, aabba ayaan hadalkiisa maqlaa. Wuxuu i dhahayaa gudaha kaynta si fiican u soo gal. Zayd, oo ahaa midkii ugu weynaa, ayaa wuxuu dejiyay Cumar, wuxuuna ku dhahay, waa inaan sii soconnaa. Waxaanay dhan waa maskaxdeena waa inaan soo saaranaa hantida intiisa dadka degmada soo kicin. Kadibna way ku sii fogaadeen kayntii. Habeenkii markii la gaaray, waxay heleen meeshii calaamadda ku taalay. Wuxuu ahaa god aad weyn. Godkaas waxaa ku dhex yaalay geedo waaweyn oo sii daynaya dheecaan guduudan sida dhiiggii oo kale. Waxaa meesha yaala dhagax aad u weyn. Dhagaxaasi waxaa korkiisa kaga yaala dheecaan madow oo qalalay sannadihii badnaa ee markaasi dadka loogu gowracayay. Markaasi Cumar ayaa wuxuu ka helay meesha xasuus qor kale oo aabbahood meesha kaga tegay, kaasoo ka sheekeynaya sidii inay isaga ugu soo wareegtay xilka markaasi si uu daryeelo kayntan. Xasuus korka waxaa ku qorneyd arrin aad u naxdin badan. Reerkooda ayay ahaayeen kuwii heshiiska la galay shayaadiinta geedahan. Markaasina waxay u ballan qaadeen dhiig si u helaan barwaaqo aan dhammaanaynin. Waxay soo kaxayn jireen dadka dalxiisayaasha, kadibna meesha ay ugu gowraci jireen. Waxaana markaasi kuusan jiray dhiiggooda jiridda kaynta. Si kadisa, dhulka ayaa wuxuu bilaabay inuu gariiro. Waxaana markaasi ka soo baxay jirido aad u waaweyn oo dhiig leh. Cumar ayay lugaha iskaga laalaabeen, waxayna bilaabeen inay u jiidaan godka. Markaasi Cumar si saa'id ah ayuu u qayliyay. Zayd iyo Isra ayaa isku dayay inay badbaadiyaan, laakiin jiridaha ayaa ka xoog badiyay. Waxayna u jiiteen dhinacii godka. Si uu Cumar u qaylinayayba, hal mar ayuu isla wada aamusay. Zayd ayaa wuxuu la soo baxay faas yaroo boorsadiisa ku jirtay. Wuxuuna bilaabay inuu xididaha jarjaro, laakiin dib ayay u soo baxayeen. Xoogaa kadibba waxaa markaasi
ka soo baxay mugdi geedaha gadaashooda. Wuxuu ahaa wax aad u fool xun oo sidiisaba inuu jajaban yahay amoodid, laakiin wejiga aabbahood leh. Markaasina wuxuu ku yidhi cod aad u cabsi badan, meeshani ma ka baxsan kartaan, dhiig un ayaa la rabaa. Isla markiiba Isra waxay bilowday inay qayliso oo ay dhahdo inay cararsii Zayd, laakiin Zayd ma uusan cararaynin. Wuxuu rabay inuu jarjaro xididaha, laakiin ma aysan dhammaanaynin. Markaas ayay waxay xasuusatay Isra in arrintan waxa kaliya lagu joojin karo ay tahay in dadkii bilaabay dhiigooda uu markaasi dabar go'o. Markaasay wuxuu u jeesatay Zayd, waxay ku tiri, waa annaga, weligeen annaga ayay ahayd, ma joogsamayso habaarkan ilaa aan annaga ka dhimanno. Zayd oon hadalkeeda dhegaysanaynin ayaa markaas wuxuu bilaabay inuu qoryo shido. Qoryihii markii uu shiday oo ay dab ka kaceen ayuu wuxuu bilaabay inuu geedihii isku dayo inuu gubo, laakiin intii guban lahaayeenba dabkii ayay cuneen geedihii. Markaasi Zayd wuxuu u soo jeestay dhinacii Isra asagoo isku dayay inuu markaasi la cararo walaashiis, laakiin markaasi jiridihii ayaa soo qabtay Isra wayna jiideen. Ayadu ma aysan la dagaalaminba. Waxay tiri iyadoo Zayd eegaysa, waa aniga, waa inay hawshan aniga igu dhammaataa. Mindi ayay soo qaadatay, xabadkeeda ayayna gelisay. Markaasi geedihii ayaa gebigeedaba kala jarjaray oo bartaas ayay ku dhimatay. Isla markiiba kayntii waxay bilowday inay burburto, waxayna isku beddeshay dambas. Zayd oo ahaa qofka kaliya hadda soo haray, asagoo aad u murugaysan, ayaa subaxii markii la gaaray ka soo baxay meesha. Kayntii weyneed oo intaasoo qarni soo jirtay hadda waxay noqotay dambas oo waxbaba kama harin. Zayd wuxuu isdhahay habaarkii xaggan ayuu ku dhammaaday, laakiin wuxuu arkay xidid yara oo dhulka hoosteeda ka soo baxayso oo guduudan. Markaasi wuxuu ogaaday inuusan habaarkii dhammaanin ee uu keliyaato seexanayo.